aqalka sare ee baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa war degdeg ka soo saaray xaaladda cakiran ee ka jirta gobolka Tigreega waxaana xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka wadanka Itoobiya ay u codeeyeen in dawlad ku meel gaar ah loo dhiso maamul goboleedka Tigreega ee waqooyiga wadanka Itoobiya. tani waxa ay ka dhigan tahay in meesha laga saaray madaxdii dhawaantan loo doortay maamulkaas kadib markii guluf colaadeed ay dhex martay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo maamulka Tigreega. tani waxa ay ka dambeysay markii dhawaantan ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed dagaal adag uu kaga dhawaaqay gobolka Tigreega isagoo oo wacd ku maray in madaxda maamulkaas ay la soo qaban doono isla markaana cadaalad ay wajihi doonaan. Abiy Ahmed waxa uu sheegay dhawaantan mar uu warbaahinta la hadlay in uu isku dayay in muddo ah in arrinta lagu dhameeyo waan iyo wada hadal, laakiin waxa uu sheegay in xisbiga maamul goboleedkaas ay ka talinaya ee la yiraahdo TPLF ay yihiin kuwa qas iyo dhibaato ka wada gudaha wadanka Itoobiya. waxa uu wacd ku maray in militariga qaranka Itoobiya ay tallaabo xoog leh ka qaadi doonaan. tan maalintii Talaadada waxa la warinayaa in dagaal xoog leh uu dhex marayo militariga qaranka Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada maamul goboleedka Tigreegu ay leeyihiin, waxaana ilaa iyo hadda la warinayaa in uu jiro khasaare aad u xoog badan inkastoo xaqiiqada aan la heli karin. Tigreega oo dhawaantan hadlay ayaa waxa ay sheegeen in gabi ahaanba hawada maamulkooda la xiray isla markaana hadda militariga wadanka Itoobiya ay duulaan ku yihiin deegaankooda. Itoobiya ayaa hadda waxa ay mar kale lugaha la sii galaysaa qalalaasa siyaasadeed oo gudaha ah iyada oo doorashadana la qorsheynayo inay dhacdo sanadka fowd nagu soo haya. wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed oo maalintii shalay la hadlayay shacabka u dhashay wadanka Itoobiya baaqay dadka ku nool deegaanka Tigreega in ay isdejiyaan isagoo oo dhinaca kale amar ku siiyay militarigiisa in shacabka la ilaaliyo. waxa la warinayaa in meelo badan oo hub ay ugu kiidsanayeen ciidamada gobolka Tigreega diyaaradaha militariga wadanka Itoobiya ay gabi ahaanba baabi'iyeen sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay oo ka soo baxaya gobolkaas. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.